soo dhawaad saaxiibayaal qaybtan waxaan ku eegaynaa dagaal iyo duqeymo toos oo xalay ka dhacay gobolka Shabeellaha Dhexe sidoo kaleete warar waxaa jira in dagaalyahanno ka tirsan kooxda Al-Shabaab iyo kooxda Daesh uu dagaal ku dhex maray qaybo ka mid ah gobolka Jubbada Hoose dagaal u dhaxeeya dagaalyahanno ka tirsan kooxda Al-Shabaab iyo kooxda Daesh ayaa hadda waxa uu ka socdaa qaybo ka mid ah gobolka Jubbada gaar ahaan degmada Jilib xalay waxaa ka dhacay dagaal iyo duqeymo toos ah dagaalkaas duqeymaha toos xalay waxaa ka fuliyay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan qaybtooda Danab ayaa xalay waxa lagu soo waramayaa inay gudaha u gashay qaybo ka mid ah degmada Jilib halkaasna waxay ku beegsadeen dagaalyahanno ka tirsan kooxda Al-Shabaab iyo horjoogiyaal duqeynta dagaalka kadib xalay dowladda Soomaaliya halkaas ay ka fulisay haddana waxaa dagaal culus halkaas uu ku dhex maray dagaalyahanno ka tirsan kooxda Al-Shabaab kadib markii Al-Shabaab careysan ay wadada kula kulmeen dagaalyahanno ka tirsan kooxda Shabaab halkaasna uu dagaal culus ku dhex maray labada maleeshiya waxaa lagu soo waramayaa in dagaalka kooxda Al-Shabaab iyo Daesh u dhaxeeyay uu khasaare badan dhaliyay sidoo kale waxaa lagu soo waramayaa in horjoogiyaal ka kala tirsan labada maleeshiya ee halkaas isaga dileen sidoo kale xalay gobolka Shabeellaha Dhexe waxaa ka dhacay dagaal iyo duqeymo toos ah meelaha duqeymaha xalay sida qaaska ay ugu dhaceen waxaa ka mid ah degmada Mahaday Aadan Yabaal deegaanka Sayd Ali Guduud deegaanka Xaaji Cali iyo qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe duqeyntan ayaa xalay Al-Shabaab waxa looga dilay horjoogiyaal ka tirsan iyo tiro maleeshiyada oo ku dhuumaaleysan qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana lagu soo waramayaa in dagaalyahanada xalay duqeynta lagu beegsaday horjoogiyaasha ay damacsanaayeen in ay weerar gaadmaha ku soo qaadaan fariisimaha ciidanka ay ku leeyihiin qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe balse nasiib wanaag ciidanka xoogga Soomaaliyeed oo xogtooda ka war helay ayaa ku baxay waxaana halkaas xalay dagaalyahanada lagu naafiyay tiro dagaalyahanno ah iyo horjoogiyaal ka tirsan kooxda Al-Shabaab duqeyntan xalay Al-Shabaab lala beegsaday waxay ahayd midii ugu xumeyd sababtoo ah xalay Al-Shabaab waxaa laga dilay horjoogiyaal gaaraya 18 horjooge oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab sidoo kale maleeshiyaadka horjoogayaasha ay wateen xalay halkaas lagu dilay tiradooda ayaa lagu soo waramayaa inay gaarayso 25 askari oo ilaalo u ahayd horjoogayaashii halkaas lagu dilay duqeyntan xalay Al-Shabaab lagu dilay horjoogayaasha iyo maleeshiyaadka ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayaa imaanaysa kadib markii Al-Shabaab maalmihii la soo dhaafay ay xoojiyeen weerarada gaadmada ay ku qaadaan fariisimaha ciidanka ay ku leeyihiin qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe dhawaan ayay ahayd markii Al-Shabaab weerar gaadmaha ay ku soo qaadeen deegaanka Sayd Ali Guduud ee gobolka Shabeellaha Dhexe halkaas oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin fariisin taas oo Al-Shabaab ugu dambeyn u suura gashay in ay gacan ku haynta degmada Sayd Ali Guduud muddo saacadaha ay la wareegaan balse ugu dambeyn ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya diyaaradaha duqeymaha ka fulinaya qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa ay ka saareen muddo saacad ka yar halkaasna waxaa hadda si buuxda gacanta ugu haya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka dadka deegaanka sidoo kale degmada Aadan Yabaal xalay waxaa ka dhacday duqeyn culus kadib markii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo saaxiibada caalamka halkaas ay duqeymo si wada jir ah ugu fuliyeen duqeyntan xalay qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan degmada Aadan Yabaal ka dhacday waxaa lagu soo waramayaa in sidoo kale lagu beegsaday tiro maleeshiyada ku dhuumaaleysan xaafado ka ag dhow degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe Aadan Yabaal waxaa ku sugan taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida Gaashaanle Sare Xasan Cali Nuur Shoote duqeyntan ayaa imaanaysa kadib markii taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu ka war helay in tiro maleeshiyada oo ku dhuumaaleysanay qaybo ka mid ah xaafadaha degmada Aadan Yabaal uu ka war helay taas bedelkeedna ciidanka cirka ee Soomaaliya uu amarku in isla xalay halkaas duqeymo laga fuliyo amarka kadib waxaa halkaas duqeymaha ciidanka halkaas ay ka fuliyeen lagu beegsaday horjoogiyaal iyo tiro maleeshiyada halkaas ku dhuumaaleysanayay waxaana xooga iyo warar hoosaad soo baxay ay sheegayaan in ilaa hadda meedadka dagaalyahanadii horjoogayaasha Al-Shabaab loogu dilay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay baabuur dabada ugu xirayaan ee halkaas ku jijiidayaan haddii inta la soo gaartay waxaan ka codsanayaa inaad subscribe channelka siina share like saartid si aan u helno saaxiibo adigoo kaleeta